wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso ayaa si kulul u cambaareeyay dil loo geystay wariye Maxamed Ibraahim Gaabo oo ka tirsanaa telefishinkan Kalsan kaasoo gaarigiisa meeno loogu xiray. wasiir injineer Yariso ayaa yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, waxaan u tacsiyadeynayaa qoyskii bahda Kalsan shacabka Soomaaliyeed oo uu ka tagay marxuumka, waxaana eebo uga baryayaa inuu jannadii Firdawsi ka waraabiyo dhamaanteen, samir iyo iimaanna eebo u naga siiyo, aamiin. si kulul baan u cambaareynayaa falkan dilka loo geystay wariye Maxamed Ibraahim Gaabo, waana muuqataa dhammaan calaamadihii kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab oo caadeystay dilka wariyeyaasha marxuumka. waxa uu ahaa aqoon-yahan jaamacad ka soo bartay dalka Uganda, lahaana mustaqbal wanaagsan, ayuu yiri wasiir injineer Yariso. wasiirka hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in dambiilayaasha ay baxsadaan oo bulshada ku dhex dhuuntaan. dowladda federaalka waxaa ka go'an sidii kooxaha argagixisada dalka looga sifeyn lahaa si shacabka ay u helaan ammaan iyo nabadgelyo la isku haleyn karo. hay-adaha amniga iyo garsoorka ayaana sameynaya baaris dhab ah si sharciga loo horgeeyo dambiilayaasha. waxaa dhammaaday waqtigii shakhsi intuu dambi gala baxsado, waxaana sameyn doonaa tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed, ayuu yiri injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso. Maxamed Ibraahim Gaabo waxa uu ka tirsanaa howlwadeennada telefishinka Kalsan xaruntiisa magaalada Muqdisho, waxaana u geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Cabdiqani Axmed Abtidoon, Kalsan TV, Muqdisho.